bismillaah halkan waxaan idinku soo bandhigayaa qiso cajiib ah oo lagu magac daray qisadii Sucaad. waa qiso jacayl ah oo dhacday. waxaa qisadaa soo guuriyey abulfaraj ibn al-jawzi imaamka la dhaho, kitaab uu leeyahay uu ku soo guuriyo la dhaho akhbaaru nisaa. marka qisadaas baan idin laqmaynaya. waana qiso loogu talagalay umuuraha jacaylka in wax looga ogaado. halkani waa xarunta sayniska iyo taariikhda. dhegaystayaasha sharafta badan waxaan idinka codsanayaa taageerista xaruntan cusub ee lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed. kanaalkeena YouTube-kana waa xarunta sayniska iyo taariikhda. fadlan waxaan u baahanahay 1000 subscribers si aan u soo galo live-ka YouTube-ka ee igu caawiya. waad mahadsantihiin. ibn al-jawzi wuxuu yidhi dhukira waxaa la sheegay anna mucaawiyata bna abi sufyaan, mucaawiya bna abi sufyaan oo amiiru lmu'miniin ah, jalasa inuu fadhiistay daata yowmin maalin maalmaha ka mida bimajlisin gole inuu fadhiistay kaana lahu uu lahaa oo bidimashqa magaalada dimashqa ku yaala caasimadda suuriya oo markaa caasimaddii dowladda islaamka ahayd. golahaasoo ku yaala calaa qaaricati dariiq, waddada bartamaheeda ku yaala. waxaa jira golo uu lahaa oo waddada ku yaalay. marka golahaasoo maalin maalmaha ka mida uu soo fadhiistay. wa kaana almajlisu golaha wuxuu ahaa mufataxa aljawaanibi, mid hareerihiisu uu furan yahay. sida muuqata teendha ayaa meesha looga dhisay. teendhada marka hareerihii baa laga furay lidukhuuli nasiimi, si hawada iyo neecawda ay u soo gasho. marka xilli kulul baa la joogay. fa baynamaa huwa waqti calaa firaashihi uu firaashkiisa ku fadhiyo wa ahlu mamlakatihi saraakiishii dowladdana bayna yadayhi hortiisa ay fadhiyaan, id nadara wuxuu midacsaday ilaa rajulin nin oo yamshii socda naxwahu xaggiisa u soo socda. wa huwa ninkaasoo yusricu degdegahaya fii mishyatihi socodkiisa, rajilan oo lugaynahaya, gaadiid ninkuma saarno, xaafiyan haddana waa kabala'ya. nin soo ordahaya ayuu arkay. ninkaasna wuu lixaadsanhayaa, wuu lugaynayaa, waana kabala'yahay. wa kaana dalika alyowm, maalintaa waxay ahayd shadiid alxarri, maalin aad u kulul bay ahayd. waana maalinta keentay in amiirka qasrigiisa intuu ka soo baxo uu bannaanka imaado. fata'ammalahu ninkii ordahaya ee kabaha la'aa waxaa fiiriyey mucaawiyatu, mucaawiye ayaa fiiriyey. uma qaala wuxuu ku yidhi lijulasaa'ihi raggii la fadhiyey, lam yakhliqu allaahu ilaahay ma abuurin minman qofoo ixtaaja u baahday ilaa nafsihi naftiisa fii midli haada alyowm, maanta oo kale ilaahay ma abuurin buu yidhi. uma qaala wuxuu yidhi yaa ghulaam, maana ninka baahidiisu la yaaba, maantoo kale ilaahay ma abuurin buu yidhi nin saa u baahan. uma qaala wuxuu yidhi mucaawiya yaa ghulaam, wiilihow, sir ilayhi aad buu yidhi ninka, wakshif waxaad ogaataa can xaalihi xaaladiisa, leanno khatar baa jiri jirtay. madaxda dad waxaa jiri jiray shar la maaga. marka mucaawiya wuxuu iska ilaaliyey ninkii si toos inuu u qaabilo. marka wuxuu u diray addoomihiisa ka mid u diray, ninkaa u tag buu yidhi, wakshif can xaalihi xaaladiisana soo kashif, wa qisatihi qisadiisa soo ogow. fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay lain kaana hadduu yahay ninka nooca ah faqiiran mid baahan, la ughniyannahu hantiilaan ka dhigayaa buu yidhi, hanti baan siinayaa. walain kaana shaakiyan hadduu yahay mid cabanayana la unsifannahu cadaalad baan u samaynayaa, oo qofkii dhibka u geystay baan oga cadaalad samayn. walain kaana madluuman mid dulman hadduu yahayna la ansurannahu waan u hiilinayaa. walain kaana haniyan haddii uu yahay nin hantilana oo qasad saa iskaga dhigana la ufqirannahu faqri baan ka dhigayaa, lacagtiisoo dhan baan ka qaadayaa buu yidhi. mana ninka xaaladdu ku sugan yahay xaalad macquula ma ah. fakharaja ilayhi arasuulu, ergeygii loo diray baa u baxay, addoonkii loo diray baa ka hortegey, mutalaqiyan asagoo la kulmahaya. fasallama calayhi waa salaamay oo wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum. faradda calayhi assalaam, salaantii ayuu uga jawaabo oo calaykum assalaam buu yidhi. uma qaala lahu wuxuu ku yidhi miman arajul, wa ninku wa ayo? qaala wuxuu yidhi sayidii, sayidkaygiiyow, maana ninka waa sargaal dowlad ula hadlayo. ana anigu rajulun nin baan ahay, acraabiyun oo reebaadiye ah, oo min bani cudra, ree cudra ah. ree cudro waa qabiilku caanbaxay jacaylka ah. carabta kale waxay kaga duwanaayeen qisooyin jacayl oon carabta kale lagu arkin bay lahaan jireen. marka ninka wuxuu yidhi anuu nin ree cudraan ahay. marka halkan waxaa lagu ogaaday ninka nin dagaal u socday inuusan ahayn, ee dadku jacaylka ku badan yahay dagaalkooda yar. aqbaltu waxaan soo aaday ilaa amiiri lmu'miniin, amiir almu'miniinkaan soo aaday oo mucaawiya ah.
mushtakiyan ilayhi ana u cabanahaya bidulaamatin dulmi oo nasalat bii igu dhacday min bacdi cummaalihi shaqaalihiisa qaar ka midana i dulmay faqaala lahu arasuulu ninkii ergeyga ahaa ee loo soo diray baa wuxuu ku yidhi asbaxta yaa acraabii reebaadiyow si fiican baad u waabariisatay macnaa waxaad ahaatay mid loo gargaaray ilaa mucaawiya ballan buu qaaday ninkaa wuxuu yidhi hadduu faqiir yahayna hanti baan siin hadduu cabanayana cadaalad baan u samayn hadduu madluum yahayna waan u hiilin buu yidhi ninkii mid ka miduu kusoo baxay oo wuxuu kusoo baxay nin madluum ah uma saara bihi waa la soo socday waa soo qaaday xataa waqafa ilaa uu ka istaagay bayna yadayhi hortiisa mucaawiya hortiisa uu istaagay fasallama calayhi wuxuu ku salaamay bilkhilaafati khilaafuu ku salaamay asalaamu calayka yaa khaliifata almuslimiin buu yidhi uma intaa kadib ansha wuxuu bilaabay yaquulu inuu leeyahay ninkii gobay buu ka dhaqaaqay marka wuxuu yidhi mucaawiyu yaada alcilmi waalxilmi waalfadli ويا ذا الندى والجود والنابل الجزل أتيتك لما ضاق في الأرض مذهبي فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل وجد لي بإنصاف من الجائر الذي شواني شيا كان أيسره قتلي معاوي بير يا ذا العلم كي أقونت لها يو والحلم كي دلقات كبدنايو والفضل كي قلد بدنايو oo deeqsiga ahaa wayaada nadaa kii deeqda u saaxiibka ahaayo waljuudi waa isla deeqdii wey wannaabiri iljazli iyo siismada weyn kii bixin jirayow mucaawiya intaba caan buu ku ahaa nin aad u aqoon badanna u ahaa nin dulqaad badanna u ahaa nin aad u gacafuranna u ahaa ataytuka waan kuu imid buu yidhi lamaa daaqa markii uu cariiriyoobay fi lardi dhulka madhabi meeshaan aadi lahaa fayaa gaythu waxaa weeye kii gargaarayow laa taqtac hagweynin buu yidhi rajaa'ii rajada aan ka qabo min alcadli cadaalad ila madax baa tahay madaxna waxaa laga sugaa cadaalad wujud lii waxaad iigu deeqdaa biinsaafin cadaalad min aljaa'iri alladii kii i dulmay min aljaa'iri kii i dulmay alladii kaasoo shawaanii isolay shayan solid isolay oo kaana uu ahaa aysaruhu ka ugu fudud solidda qatlii dilkayga shay waxaa la hilibka markii dabka toos loo saaro biyo lagu darin waxaa weeye hilibka waa la solaa marka af carabiga shayhi baa lagu dhahaa sabaanii ninkaa wuxuu iga afduubay buu yidhi sucda gabadhii sucdo ahayd buu iga afduubay wambaraa wuxuu u banbaxay likhusuumatii inuu ila doodo wajaara wuu cadaalad darro sameeyey walam yacdil ma cadaalad samaynin wa aqsabanii wuxuu iga dhacay ahlii ehelkaygii buu iga dhacay qasadtu waxaan kuu soo qasday adiga liarjuu qasadtu ninkaasaan u qasday dheh ninkaa gobortooraha ah baan u qasday liarjuu si aan u rajeeya nafcahu nafcigiisa fa ahaabanii wuxuu igu abaalguday bisijnin xabsi wa anwaaci alcadaabi cadaabka noocyihiisa maca alkabli asagoo xadhig igu xirxiray wahama wuxuu hamiyey biqatlii inuu idilo hayra anna maniyatii laakiin geerideedu ta'abbat waa diiday malagay umaan gelin laakiin wuxuu ku talagalay inuu idilo walam astakmil ma dhammaysanin alrisqa risqigii oo min ajali ajashayda xaggeeda ka ahaatay risqigayga iyo bariskayga unbaa dhinnaa mooyeene inuu idilo ku talagalay aqifnii ii gargaar buu yidhi jazaaka allaahu ilaahay ha ku abaalmariya cannii aniga jannatan jannaha iga ka abaalmariya ii gargaar buu yidhi faqad taara waa duulay min wajdin jacayl dartii bisucda aan jeclahay laha ayada wuxuu u duulay caqligayga gabadha caqliga iga qaadee ninka iga hiilo iyo gargaar buu yidhi falamaa faraqa markuu dhammeeyey min shicrii gobigiisa qaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ku yidhi yaa acraabi waraa reebaadiyow innii anigu araaka waxaan ku arkaa tashtakii inaad ka cabanayso caamilan waxaa weeye shaqaale oo min cummaalina shaqaalahanaga ka mid ah walam tusmichu lanaa magaciisana maadana maqashiinin waxaad ka cabanaysaa nin oo ana aan shaqo u diray oo gobol aan u dhiibtay magaciisana maadan sheegin sheeg buu yidhi marka qaala wuxuu yidhi aslax allaahu alla ha hagaajiyo amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkooda waa eray ixtiraam oo lagula hadli jiray madaxda wahuwa ninkaa wallaahi allaan ku dhaartee ibnu cammika waa in adeerkaa buu yidhi marwaan ibnu alxakam weye caamilu lmadiina madiina ninka caamilka ka ah oo gobortooraha ka ah oo ilma adeerta aad tihiin weeye oo marwaan wuxuu ahaa marwaan ibnu alxakam ibnu alcaas ibnu umaya ibnu cabdishams mucaawiyana wuxuu ahaa mucaawiya ibnu abi sufyaan ibnu
حرب ابن أمية ابن عبد الشمس مركا المأذر بأهين. قال معاوية يقول وما قصتك معه شكذا ذو محيتها يا أعرابي نك رباديه قصة أري مروان إن الأحمر تمحيتها. قال وحوري نك رباديه أصلح الله الأمير أميرك الله هاجيو وإري لو تلقى الأمير كنوسان عرون. كانت لي وحان لها بنت عم جبر المأذر نهي خطبتها وحان كدون إلى أبيها أبهد فزوجني منها وإيقوري وكنت وحانا كلفا بها مدآد وشعل لما كانت فيه وحي كسكنيدو من كمال جمالها قروح لما استرنان يقبتو وعقلها يا عقلي نك قروح يا عقل اسكو درسته بيدبري والقرابة يا قرابة عن نهين بان أد أوجع جعل هذا كلف وجعلك زائدك فبقيت معها والجو يا أمير المؤمنين ولنولا في أصلح حالك أوه هجاكسن وأنعم بالا قلبك أودكا مسرورا أنيقو فرحسن زمانا زمن قرير العين إشي سوء قبولها. وكانت لي وحان لها صرمة وحاوية إن يرأوا من إبل جيلة وشويهاتني عيسامان لها بيري نكو الربادي فكنت وحانها أعولها كيبيلا ونفسي نفتي بها انت جيل وحان كبيري جري عيسامها فدارت عليها وحاكوريك أقضية الله إله قضيهسي وحوادث الدهر يدعوينك زمنك أبارا دعي فوقع فيها وحاكو دعي داء عذر باقيلي أري إيغا دعي فذهبت واتكتب بقدرة الله إله قدرتيسا فبقيت وان هذي لا أملك أنا لهين شيئا وحبا وصرت وحان نقضي مهينا مد إهانيسا مفكرا وفكرا قد ذهب أوتي عقلي وساءت حمات حالي حالة ديدا وصرت وحان نقضي ثقلا مد علس على وجه الأرض وجه كركيزا مد أذو علس بان نقضي فلما بلغ ذلك أرن كامركو قال أباها قبل أبهد حال بيني وبينها أني قبل ونكلا أحقلي وأنكرني أبهد وائي إنكري وجحدني وائي دفري وطردني وائي عيري ودفعها عني وإيقف في جيبي وركع قبل يدافري نبيلها يستمتيذ قبل إذا مالها كسع عن ميسيد فلم أقدر ما أوذ لنفسي نفتي بحيلة حيلت ولا نصرة هيلة وانا وحان نفتي أوترن حالدي بقى وقت كاتمرك وذي أذركينا واسكو دحني مركاسا وحان كفكري بيري قابك أردنا أن أحللها فأتيت وحانو إميد إلى عاملك وحاوي نينكي مسؤولك هذا أها ومروان بن الحكم أها ومدينة المسؤول أغدكتي مشتكيا أنا أقعبني بعمي أذركي فبعث إليه أذركي بأدرة وحيري أضي قاس بأدرة وحيري دعوت بكاتا لإمو فلما وقف مركو استاجي بين يديه أضي أذركي أمركو مروان هرتيس استاجي قال له مروان بوحكوري يا أيها الرجل ورنك هذا لما محات حلت أكل الأحجاشي بين ابن أخيك ويل كان أذرك أتهيو وزوجتي يريركيسي بحضوك على الحق شيء قال نينكي وحيد أصلح الله الأمير أميرك الله يجيب ليس له معهان عندي أكتيد زوجة حاس نينكن وحرير وأسيد ليه أكتيد جوغب مالها ولا زوجته ولغن أما بقورين من ابنتي قبل إذن ولغن أما بقورين قلت حنقول أنا أصلح الله الأمير أنا بفرتت وحاني أميرك الله يجيب أنا وراد وحرالك بالجارية قبل أن رالك gabadha ninkan oo dhalo u yeera weydiiya ninka hadi miya hadii ma yadhahdo mar dambe laga maqlay maayo hadii ha dhahdan waa reerkayga hal isiyo fa in ra'a al-amir wa amirku haduu arko oo ra'yahan u arko ay yibcath ilayha gabadha inuu fariin u diro oo yasmac minha oo hadal ka maqlo oo yasmac minha oo ka maqlo ma taqul waxay leedahay saasa fiican مروان أرنتبها ولا دعي مرك فبعث إليها قبل بفرين ودري فأتت الجارية قبل باتمت مسرعة أيضا أرديسة ودقدقي سيتمت إلا أذركت ينك أيضا قبل ما أذركت أعين فمحكمة دي جوغال يري مروان وأميرك مدينة أنا وكويريا فرد ما أويها لو يسوء أرضي فلما وقفت مركي استكتب بين يديه أرديسة ونظر إليها أونا أركي أيضا وجه في ذنب إماتي وإلى حسنها يقول حدث وقعت منه وحكا قد عليه موقع الإعجاب ميل ليابلب والاستحسان يقول حسي مروان قبل بأذو لا دعي ما نينك أميرك marka meeshii la rabay in la kala xukumo odaygii iyo wiilkii uu adeerka u ahaa iyo islaantii fasaara lii wuxuu noqday yaa amiirulmu'miniin oo khasman mid ila doodo noqday marwaan waa isbedelay wantaharani waa icanaantay wa amara bi wuxuu amray ila sijni xabsiga leegay isla markii gabadh markuu indhaha ka qaadayba intuu isbedelay oo icanaantay buu ixray buu yiri intuu booliisku u yeeray wuxuu ninkan qabta xabsiga la dhigo
فبقيت وحان نقضي ويري كأني سيدي أنيقو خررت كسر دعي من السماء سمدا في مكان ميل لكو دحي سحيق وأدفك وحان نقضي ويري سيدي إن أنتو عركة كسر دعي ميل أدفك دعي ثم قال لأبيها أبيه دو حكيري بعد قداشي دو حكيري وضيق أديركي أهاب الله هذا مركا مروان هل لك مرة بتابيري أن تزوجها مني وأنا قبل ما أنا يقول بنك الربادية فقيرك أنت ماشي كبا صارنبا قبل أن أنا ما قدرت وأنقذك وحنكو ترن 1000 دينار كن دينار كاش وأزيدك وحنكو زيادين أنت أذية 10,000 توان كن درهم وفضة وتنتفع بها تكون انتفاع هذا كن دينار ودهب كوسينها يا وحانكو ودر الطبن كن ودرهم وفضة وتكل عقيسته رير بديئة دينك وأنا أنيقنا أضمن وحنطبينك الطلاقة هنا أساك كفرو قبل إنك أنا كلافوري أدو قبل منك أنك كسوفر ما يسين بيري قال له أبوها أبيه حكيري وأنك لحد أديرك إياها إن أنت فعلت ذلك ساعة ضد يا شو زوجتها منك قبل أن كقورنا يا أمير نك جيلنا وكنا ماذا أرينا وكنا ماذا وأنا ربادية هدي قبل أميرك وهو يستلعين ترى أن كيلي بحب كديدي فلما كان من الغد برمرك اللي قالي بعث إلي مروان بئيس ودربير إلا حبسي بكجرا ننكي قبل قبي جري فلما أدخلت عليه مركي الإيس وقلي أو ماشي حفيزك أمير كان ماذا نظر إلي وإفيري كالأسد الغضبان سيدي اللي باح عريسان وكانوا إفيري فقال لي وحوري يا أعرابي أعرابي رباديو طلق سعودة فربيري قلت وحنكوني لا أفعل يلي ماهي فأمر وحو أمري بضربي اللي قرعه ثم ردني وحيقول علي إلى السجن حبسي مالنت كوبات وقال قرع بي حبسنا لقوا عليه فلما كان في اليوم الثاني مالنت لبعد مركي إيه قال وحولي علي بالعربي مركو حفيزك سأصو قليب وحولي كيري باديها كان فلما وقفت مركا استاقبين يديه هرتيس قال وحولي طلق سعودها نيه سعودة فر فقلت وحنكوني لا أفعل يلي مهيو فسلط وحيوصل لذيبي علي الدشي يا أمير المؤمنين خدامه وحيك أكتشو وأذيقه يبي يوصل لذي فضربوني وإقراعا ضربا قراعه لا يقدر أسان أودين أحد قف على وصفي أنه تلمامه وحي شقالاء حفيز كجرو أردن بالي ننك سوق بتوتما سوال إشو كله يبيري سأدق بالي قراعي بيري حتى ما بتلمام كل وسيلة قراعي ثم أمر بي وأمر إلى السجن حبسي فلما كان مركوها في اليوم الثالث ما لنت سدحات قال حولي علي بالأعرابي ونكري باديها إي كان فلما وقفت بين يدي شامروان شو قبل مسكح ورافته مركو حفيزك إما ذا نكري باديها وكبل على شقي سارورتي فلما وقفت مركا استاجب بين يديه هرتيسة قالوا حولي علي بالسيف والنطع شو قرع وصورفت علي إي كان بالسيف سافتي إي كان والنطع ومقار وين الله دذك الدين سيد إيجو ركو سوق هذا مقار كان إي كان وأحضر وحو كان السياف كي ذاتك اللي قلت كجري جرين وكاري ثم قال وحولي يا أعرابي ورانك الرباديه وجلالة ربي وينك إلهي من قرارته وكرامة والدك كرامتي سان قرارته لئن لم تطلق سعودة هدادا فورين لأفرقن والله وحانك لقوين بين جسدك جرك هذا إيو موضع لسانك مشهد كهذا شو ماذا حانك قوين يا بير لما حلق الله قرطة كورين يا نكري باديها طلعوا عدات حلو فخشيت وحان بقي وربقي على نفسي ذو حان بقي من القتل دل فطلقتها وحان فري طلقة فريتان واحدة أو كلي هل طلقت بان كفري على طلاق السنة طلقت السنة أهيد وحا سنة أنك تمرك اللي فرعي هل طلقت أنه اللي فرع ثم أمر بي أمره إلى السجن حبسي فحبسني وإحري بيري الكيس كي مرة مارن والإحري بيري حبسي ولي وعلي فحبسني فيه حبسي بيقو حبسي حتى تمت إلى كرماتي عدتها عددي إلى قبل عددي كرماتي وسدح دقيقة كهشة سدح جاني طاهر نقطي وحبسي وهي وثم تزوجها أقر سدو فبنى بها أو لستي ثم مركي انت أسميه قبل انت عددي لماتي وقر سدي ولستي ولا أقل قلي ثم أطلقني ويسيداي مركي أركع ويري رباديه دونك له ملك حلو فأتيتك وان كو إمد مستغيثا أنا كو هبرو عنها قد رجوت أنا كو دري عدلك عدالة وإنصافك يقرصور كذا فارحمني إن حريس يا أمير المؤمنين إن حريس يري
فوالله إلهي بان كنت أرتي أمير المؤمنين لقد أجهدني وحي دالي الأراق الأفر إيسو جد وأذابني وحي دالي القلق مرغو وبقيت وحن هذا في حبها قبل أجعل كذا بلا عقل الآن ثم انتحب وهي ممسدي اللمبا كصداتي ثم كادت وحي كل دوات نفسه تفيض إني بحظو نفت إني كبحظو وحيركو سكتي ثم أنشأ وحب الله بيقول أسول في القلب مني نار والنار فيه الدمار في القلب والله مني يعني وحيلتها نار ضب والنار ضب كان فيه وحكجر الدمار بربر ضب مال وقلي من وراضه والجسم مني سقيم فيه الطبيب يحار والجسم جرك مني أنا سقيم ومذ بكوي فيه الطبيب اخترك يحار كوريري عبرك أهيا والعين إشنا تهطل وقلقليس دمعا إلين فدمعها إلين تيد مدرار ومد آد أشميسا حملت منه عظيما فما عليه اصطبار حملت وان قاذبير منه مرقدا عظيما الرموين فما عليه اصطبار وما أتكيسن كرا فليس ليلي ليل هبينك وهبين ما أهبيري ولا نهاري نهار مالن تيدنا مالن ما فرح من حريسة كئيبا مد مرارد اللعسا حزينا ومرغيسا فؤاده قلبي مستطار وسيدي دنبل أول لهيو أردد علي إيسو علي سعادي دي إيسو علي يثيبك الجبار اللي أود بدنا يا أبالك هذا كسينة ثم خر وادعي ننكي مغشيا عليها سول أمير الدبالة بين يدي أمير المؤمنين أيوكو دعي معاويه ارتسوس أو دعي سوم السحسن كأنه حد مدى قد سعق به إن لسوحي كرنتين تلودجي نص أو سحاد مدى قال حولي وكان في ذلك الوقت حلقاس معاوية حقا متكئا مدبر كنسا أو تيرسبوها فلما نظر إليه ننكي مركو فيريي وأركي أسوه سوحي قد خر ودعي بين يديه هرتيسا كدعي قام معاوية واستاغي مركا شيفكي وكي استاغي ثم جلس وافرست أرنت بالوينات مدح باوينات وقال حوري إنا لله وإنا إليه راجعون اعتدى واحد قد والله إله بقول أرتموران الحكم ضرارا حد قد بكسمي في حدود الدين ده halkani waa xarunta sayniska iyo taariikhda si aad ula socoto qaybta labaad ee taxanahan walaal waxaad subscribe garaysaa xarunta sayniska iyo taariikhda waxaad kaloo ku taxantaa page-keena Facebook ee xarunta sayniska iyo taariikhda la socod wanaagsan qaybaha dambe dhageystayaasha qiimaha iyo qayaha badan hanaga iloobina subscribe-ta like-ta iyo share-ka adinku aad iyo aad u mahadsan